بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin aad ku degeynaysaa farxad deganaan barwaaqo iyo bashbash waxaan maanta muuqaalkan ama podcast aan ku soo qaadan doonaa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah marka la joogo gudaha Soomaalida ama dhalinyarada ah mid si ba'an ay ugu jawareereen waxaan muuqaalkan ku soo qaadanaynaa waxa loo yaqaan jacaylka iyo suugaanta si fiican aad ugu weerarto jacaylka iyo suugaanta waxaan muuqaalkan ka jawaabi doonaa dhowr su'aalood ay ka mid yihiin jacayl maxaa la dhahaa jacaylkan maalin kasta aynu aragno ama in badan aynu dhageyno ay maqlaan wuxuu yahay jacaylkaasi suugaanina maxay tahay mase waxa isku laray labadan maxaa ay muddooyinkii dambe u noqotay suugaantii Soomaaliyeed mid ka tab qaadata ama u janjeedha mid jacaylka ugu foogeen jacaylun ka hadlaysa waxyaabay kale nolosha ka baxay markasta jacayl lagu soo celiyo jacayl sidaas la mid ahna miyay noqon kartaa suugaantu mid ina dhadhasiin karta jacaylku wuxuu yahay ama ina bari karta jacaylku waxa ay wax weeyaan ama miyay noqon kartaa mar jacayl ugu laabano samee noqon kartaa mar jacayl ugu laabano jacaylku wuxuu yahay eegto salaha heestan waxayna tirsadan bayna tiriimid halka kuwa badan oo kalena ay inooga digayaan jacaylka markaas miyeenataas abuunay faandiro baasan oo jacaylka ah qofkii dhalinyaradii ahaana uu ku dhaxalaabayo markaas miyeenataas abuunay abuuras insha Allah mowduucaas aynu kula faguri doonaa idamka alle intayna haduu mowduucan ku sii socon inoo saar muuqaalka like please muuqaalka like noo saar haddii aanad weli nagu soo biirina idamka alle waxaan rajaynayaa inaad wax badan naga faa'iidi doonto nagu soo biir oo channelka subscribe saaro waya bilowna hadaba muuqaalka marka hore aan isweydiino jacayl maxaa la dhahaa kelmaddan jacayl ama love maxaa loo yaqaanaa iyada marka hore jacaylku waa dareen insaani ah oo fidradda bani'aadamka ku lamaan laakiin caadiyan dareen ahaan waa isku dhafka xamaasad naxariis kalkacal tixgelin iyo ixtiraam caadinayana dhiganayaal badan ayaa ku qeexa jacaylka inuu yahay israbitaanka lab iyo dhadig dariiqo waafaqsan diinta iyo dhaqanka laakiin la iskuma waafaqsana arrintaas haddaba jacayl baa maanta ku dhacay aniga jacayl baa haya maxaan ku garan karaa jacaylkaas qofkan aan jecelahay inuu jacayl yahayo aba in xiisan tahay maxaan ku garan karaa kow waxaad ku garan kartaa ama in lagu garan karaa jacaylka xidhiidh ruuxi ama spiritual connection jacaylku ma aha oo keliya rabitaan balse waa xiriir qalbi iyo naf waxaan ka wada qofku ama qofkan kale ee uu rabo uma rabo keliya si jireed balse waa rabitaan xasiloonin qalbi iyo naf degan laba naxariis iyo kalgacal qofka jacaylku haya waxa uu dan iyo dareen dhab ah ka leeyahay wanaagaaga iyo farxadaada waxaan uga jeedaa maanta waxa aan markaan anigu tusaale qof jeclaanayo oo kale qofkaas wax kasta oo wanaaga uu samaynayo waxaan ka mid ku taageeraya ku farxaya una arka mid aan marnaba gardaamo keenayn yacni waxaasidnimo oo kale qofaas kama gelisid wanaagiisa waa jeceshahay xumihiisana markaas wax isku dayaysaa marka inaad ka reebtid qofka marka waa jeceshahay saddex rabitaan joogto ah jacaylku waxa uu ku beerayaa damac uu doonayo in qofkaas uu la wadaago nolol waqti iyo riyooyin nolol baynu leenahay waqti baynu haysanaa riyooyin himilooyin bay doonaynaa inaan gaadhno qofkan uu qofka kale jecel yahay ama uu doonayo inuu jeclaado ama jacaylku u hayaa wuxuu doonayaa intaas in la wadaago nolosha inuu la wadaago waqti inuu la qaato riyooyin inuu ka wada madhaliyaan qofkan buu rabaa qofku wuxuu doonayaa in qofkan intaasoo dhan ka helo buu rabaa intaasoo dhan buu u hurayaa intaasoo dhan buu markaasi ka doonaya isaguna afar u hurnaan iyo dulqaad jacayl dhab ah oo dhex mara laba lamaane wuxuu ka yimaadaa inta badan awood qofku ugu adkaysta dhibaatooyinka uguna dulqaato cidda uu jecel yahay haddii kale sida imikaba dhalinteenu ugu dhibtoonayaan ayuu u samaynayaa xiise waldhac ama laablakac oo jacaylkii markaas sugaantii oo kale aad degeysatid heestii markii hore aynu soo akhrinaha inay haddii aan jacayl jirin jag lama ciyaarin sooma jaar lama ahaadeenu jool looma jeesteen ayuu qofkii soo akhrinayaa ama soo dhegeysanayaa hadhow toole muxuu aaminayaa jacaylkiiba muqadas yar buu ka dhigayaa muqadas yar markaas kaasina markaas looma baahnayn jacaylku wuxuu baahan yahay hurnaan iyo dulqaad markastana murugadiisu wataa jacaylku shan farxad iyo murugo isku dhafan jacaylku marka qaar waa farxad aan la soo koobi karin marka qaarna waa murugo iyo hanqaltaag suugaantuna sidaas la mid ah ayuu tahay mid marba ka turjumaysa xaaladda abwaanka iyo dareenkiisa qofka suugaanyahanka marka jacayl isaga uu xanuujiyo ama uu laabta ka gubanayo waa kan heestaha ay naga kaxaynaya jacaylkii noo keenaya
markuu jacaylka jeclaysanayana waa kan inoo odhanaya de waa macaan iyo malab jacaylku inoo odhanaya markaasi waa farxad iyo murugo isku dhafan markaas jacaylku wayay haddaba maxaa la dhahaa sugaan ereyga sugaan inta badan maxaa la yidhahdaa mawduuca suugaanta ah in badan baynu kaga sheegaynay jalalkeena aadna ugu faaqidnay muuqaalo badan dibna waad u raaci kartaa oo soo daawan kartaa waana idinkula talinayaa inaad soo daawatid qof kasta inuu soo daawado waayo jalalka muuqaalka taariikhda suugaanta suugaani waxa ay tahay iyo mawduucyo kale fara badan oo suugaanta ka hadlaya aynu kaga hadalnay markaana soo daawato waan idinkula talinayaa haddaba suugaanta qeexitaanka ugu fudud aynu saari karno inagoo hanka ka dhiganayna ama salka u dhigayna xaalka ama fahankeena inaga ka Soomaaliyeed inay suugaanta xilligan waa hal abuur iyo curin maskaxeed oo lagu cabiro dareenka fikirka iyo aragtida bulshada maxaa wadaa iyadoo la adeegsanayo markaasi erayo cod iyo laxan waa dhaqanka iyo hidaha ugu qaalisan aynu leenahay inagu ka Soomaali ahaan inta badanna waxa lagu gudbiyaa xigmad jacayl oo ah kan aan imikaba u xiibsiitay oo suugaanta imika halkaas u xiibsiibay jacaylkaas u xiibsiibay soo kale waxa laga hadli jiray geesinimada iyo wacyigelinta iyo wixii lamida suugaanta waxa kamid ah haddaba ama aynu odhan karnaa waa isku darka gabayga geeraarka jiftada iyo wixii lamida haddaba suugaantaasi shacabada kala duwan ka hadlaysay qiimaha lahayd maxay u noqotay muddooyinkii dambe mid ka fogaan jacaylka miyaysan ahayn isweydiin mudan inaynu isweydiino oo suugaanta qaybahaas kala duwan ee nolosha ah in awoodda intaas lag lahayd hal abuurka suugaanteed ee curinta maskaxeed ahayd inay jacaylu kaliya kusoo goobnaato maxaa sababay qodobadan hoose markaasi sababay oo aan is leeyahay anigu kow suugaantii hore maxay ahayd horta suugaantii hore waxay ka hadlaysay dagaal sharaf iyo siyaasadda bulshada gabayadii hore iyo gararadii waxay xoogga saarayeen geesinimada nabadda cadaaladda siyaasadda qabiilka inkastoo oo gabaygu ahaa marjacaad u weyn oo ay markaas suugaanyanidii hore iyagu kaadkaasu kaliya saari jireen hal abuurku wuxuu waa hub bulshada uu hogaamiya waxaana loo adeegsanayo dagaalada iyo heshiisyadaba labadaba jacaylku wuxuu qayb ka ahaa suugaanta balse ma ahayn mawduuca ugu weyn oo suugaano fara badan ama gabayo fara badan baynu naqaanaa oo jacaylka waagaasi ka hadlayay laakiin mawduuca ugu weyn haddana jacaylka si yar dhab abaarnimo ah oo saxda yarad u dhow ayaa looga hadli jiray sida imika mayn laba isbedelka qarnigii 20aad magaalada ayaynu nimiday qaraamiga iyo fanka casriga ayaa kordhay iyo wixii lamida heesaa loo yaqaan qaraamiga oo muusigiinta u dhaxaysa Soomaalida 1940 ilaa 1980 wuxuu si gaar ah xoog u saaray jacaylka maxaa yeelay jacaylku waa dareen guud oo qof walba taabanaya jacaylkii saas baa markaas lagu hadlayay bulshada magaalooyinka ku nool waxa ay doonayaan suugaan noloshooda shakhsiyeed ka hadashaan warbaahinta casriga ah waxay ka dhigtay jacaylka mawduuc ku haboon in la faafiyo xilligaas marka qarniga 20aad saddex cunsurka dareenka ama waxa loo yaqaan emotional appeal jacaylku waa dareen ka baxsan qabiil siyaasado iyo kala qaybsanaan hal abuurayaashu waxay ogaadeen in haddii ay jacaylku xardhaan bulshada inteeda badan ay si degdeg ah la jaan qaadayso sidaas daraadeed jacaylku wuxuu noqday luuqadda ugu fudud ee qof kasta fahmi karo xitaa iyadoo fariin qarsoon lagu laray sida siyaasadda gumeysiga iyo ama qurba joogta oo waxa laga yaabaa heeso badan oo jacayl ahaan u dhageysatay aynay ku gudbinayeen fariin siyaasadeed oo halkii aad qofka toos u abaari lahayd inaad jacayl ka dhigis jacayl kuwaasan qof baad u sarbiibaysaa ma garanaysan marka waa in hab ay sugaan yahanadu inta badan adeegsadaan ama hal abuuradu ay adeegsadaan oo ay ku gudbiyaan fariin hoose ku gudbiyaan afar xilliyadii adkaa dadkeena Soomaaliyeed waxaan ognahay inay soo maray qaranjab aynu soo weeraray dagaalo far badan aynu soo marnay qaxootinimo ay soo galeen iyo wixii lamida markii dagaaladii sokeeye qaxootiyada ku yimaadeen dalkii Soomaaliyeed hal abuurka badinkiisu wuxuu jeestay murugo iyo jacayl murugo badan baa soo asiibtay waxyaabahaas dhammaan markaa u kaxeeyay dhinaca jacaylka waxaa loo adeegsaday inuu noqdo daba nafis iyo magangelyo nafsi ah oo maxaa ka wadaa dadka Soomaaliyeed waxa ay ka badeen midhaha dagaalada qaxa burburka taasoo ka dhigtay inay dadka suugaanta u heelkaayaan suugaanyahanadu ay nafis ka raadiyaan jacaylka nafis ka raadinayaanba inta waxyaabo kale ka hadlayeen maanta tusaale karaan suugaanyaha banay halkii aan dhibaatada siyaasadda ka hadlaa jacayl yar baan ku tuuranayaaba sidaas oo kale markaas u noqotay tan waxay soo xoojisay in jacaylka imika loo arko imika bulshadeena loo arko tiirka ugu weyn ee suugaanta casriga ah imika halkaas ugu taagan yahay haddana jacaylka wuxuu naga siinaya kolba faano negative oo trump naga siinaya shan baraha bulshada iyo jiilka cusub jiilka loo yaqaan jiilka third loo yaqaan waxa ay ku baraarugeen ama ay ku kacaameen noloshan internetka TikTok YouTube iyo Facebook waxa ay ka dhigtaan jacaylka mid hadal hayn fudud qof maanta jacayl ka hadlaya jacaylkiiba markaas si yar fudud hadal hayn fudud oo far badan buu markaas yeeshay gabayo iyo isa jacayl ayaa si degdeg ah u noqday viral caan bay u noqdeen
ma garatay dad fara badan baa daqiiqadii badaawaday halka kuwa siyaasadda iyo dhaqanka qotada dheer ka hadlayay ay dadka qaar ka dheeraadeen ma ay iska badaayeenba in marka dee heestiga hadlaysay qaranjabkii dalka in wacyigelintiga hadlaysay laga dheeraado ee tii jacaylka loo riixdo taasi waxay ku raacaysaa qofka hal abuurka inuu mar walba soo badiyo dee qofka dee wax soo gudbinaya markasta maxay dadku doonayaan bisoo ka fikiraya ama saxaafadda ka fikiraysaa saasi daraadeed markii heesay jacaylkii markasta loo basay abwaankiina inuu kuwaas soo sameynaya haddaba iminka ahaan miyay noqon kartaa suugaanta Soomaaliyeed mid ina bari karta ama inoo noqon karta mid aan ka heli karno macnaha dhabta ee jacaylku wuxuu yahay miyay bari kartaa dareenkan miyay ina geysiin kartaa waa su'aal mudan markaasi inaynu isweydiino sidii aan hore u soo sheegnay bada caleen jacaylku waa dareen uun bes abwaanka ku yimaada dareenka abwaanku wuxuu dareemayo uun ku yimaada suugaantuna intaas bay noo soo bandhigaysaa marka abwaanku jacaylka ku faraxsan yahay waa kan inoo oranaya haddii aan jacayl jirin jag lama ciyaareen mar kalena marka jacaylka lagu dhibo ama wax uu tirsanayo waa kan inoo oranaya jacayl ma jiree jirka isku baahan jacayl ma jiree jirka isku baahan waxaan filayaa in hees Soomaaliyeed ay sidaas oran jirtay markaasi marka abwaanna jacayl ma jiree jirka isku baahan niraahdo abwaanna niraahdo inay jacaylku waaba lagama maarmaan bay niraahdo sidaas yaraan ku soo arkaynay marka qofka dhalinta ah 15 jirka ah muxuu aaminaya hadaba daawadow adaa su'aasha ku deynayay qofka 15 sano jirka ah ee imigu soo kacayo waxa dhageysanayay muxuu aaminaya waa tan daadan wax ma kala xalay waa tan bulshadii Soomaaliyeed laba u kala jabtay qaar in oranaya jacaylku waa muqaddas iyo kuwa gabigiisa aaminsan inuu yahay jir oo raadinta jir inuu yahay dabadeedna waa tan aynu in badan aragno habla Soomaaliyeed oo meelahaas kaga ooyay jacayl dirtii waan wax walba sameeyay kan in guraya barta loo yaqaan TikTok imise gabdhood bad ku aragtay oo jacayl baa lagu dhabeeyay jacayl baa sin lagu sameeyay waxa maanta kale inoo guraya imise gabdhood bad ku aragtay yaa u sheegay markaas inuu jacaylku yahay wax marka wax kasta la isku sameeyo la isku dulmiyo la isku dhibo yaa u sheegay haliga keentay faanka suugaanta ka keentay qaarkood baa qoranayay ninka waan jeclaa hadaba waxa aan ula dhaqmay sidii xaaskiisa kale loo dhaqmay oo yaa kugu yiri jacaylka ayaa wax walba la isku sameeyaa marka marnaba jacaylku ma noqonayo il aan uga dab qaadano ama aan ka barano suugaanta waxaan ka barano ma noqonayo waayo waxa dhacay khalkhalgaas caadiyan jacaylku waa wax u baahan inaynu si gaar ah u daraasayno si gaar ah u barano maadaama uu nolosheeniba uu qayb ka yahay oo haddii aan jacaylkeeda nolosheena jacaylka ku jirin maba dhan kasta marka jacaylka waa qofka ka soo gelaya moogtay jacaylku marka waxaynu si gaar ah inaynu u barano u baahanahay suugaanta Soomaaliyeedna markaasi ma noqon karto waxaynu jacaylka markaasi in aynu ka aamini karno waayo jacaylka sinu soo sheegnay waa dareen qof ku yimaada qof kale dareen ku yimiday dareenka uu kale marka dhibaato uu muujinayo jacaylku waa dib uu ku oranaya marka ay uu ku oranaya abwaanku inay jacaylku wax wanaagsan ka sheekeynayna isaga uu wuxuu dareemayay bas marka wuxuu xukumaya bas adiga qofkii dareeyadaana muxuu aaminaya jacayl buu aaminaya hees bilayo watiisa oranaysa sabayna loo dhaqma qofana jacayl isku oranaya baa dhutqay intaas aynu markaas podcast kana mawduucan ku soo gabagabeynina haddii aad wax badan naga faa'iiday muuqaalka like saar inta aan bixin muuqaalka like saar aad baan idinka raali gelinayaa maqnaana shayga aadka u faraha badan leh aan idinka maqnaa insha Allah hadhow waxaan isku day doonaa inaan noqdo full time inaan noqdo markasta muuqaal idin soo dhigo muuqaalo sidan oo kale ah oo podcast oo kale ana waan idin soo baadin doonaa insha Allah idinkuna channelka subscribe saara muuqaalka like saara muuqaaladana daawada aad ba u mahadsantihiin tan iyo taan ku kulmi doono muuqaalka xiga ama podcast-ka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadiino ku dakeeya farxad barwaaqo bash iyo nabad